السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة يا شيخ قايمة قايلة halkan waxaa ka soo hadlaysaa ragala nuis magacaydu waxay lumar awaal ibraahim waxa caawanahaynaa waa taariikhdii nolol maalmeedkii iyo halgamyaagii weynaa aadan roobla cawaale waxa caawa falla dheer ka bixinaya halgamaga halyeyga beesha ciise ka dhashay ee waddanka reer jabuuti u dhashay ee taariikhdiisa ummad badani ayna ogeyn isagoo maanta faarax ciise xaaji oo warbixin dheer naga siin doona dhegaystayaal caawa waa inaad ka barataan taariikhdii aadan roobla cawaale iyo halgamaagii taariikhihii u soo galay naftiisa u huray jabuuti. salaamu calaykum faarax xaaji ciise. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج عمر واد ما صنتهاي آدي أنا وانو سلام يا هذا قال النيوز شغالة هذه تفاصيلها جود انت بقى وانكو سلام يا حاج. aad baan anaku salaamaya waxaad maanta nooga warantaa ama aad ka bilowdaa halgamaagii aadan roobla cawaale markuu hortaba tacliintiisa kusoo dhamaystay faransiiska 1969 ee uu halka iyo muqdisho u aaday nooga bilow ilaa wasiir xildhibaan isagoo maantana uu dhintay bal wixii dadka shacbiga generationka jiinka yaryar in taariikhda garanay si ay u maqlaan bal go'eed si aad uga bilowdaba. asalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلهي أقول حريصة الجماجي ويناي كد طيمانتا دمان ذلك جبوتي الله أقول حريصة دمان أهليدي إيا قراودي إيا عرورتي إيا حاسكي دمان انت وإلهي السمرية إيبانا كسيو إيا انت صور عليه ذلك دمان كلي مانتا ninba maalin baa lahayaa geeridiisa maanta waxaan haynaay waa halgamaaga weyn aadan roobla cawaale allah u naxariisto horey iyo isagu naftiisa u maaragtay shahiid au u siiyey inuu dalka jamhuuriyadda jabuuti ku bixiyo ama au dalku nabad iyo gobonnimo gaaro ama naftiisu ay baxdu horay au maaragtay au u niyooday ahayd naftiisa hase yeeshe maanta meeshii ugu xumayd iyay ku baxday oo gacan sokeeye oo aanu maaragtay mana soo dhiganin iyaa tii cadaawaha au siiyey naftiisa inay goyso ilaahay markuu ka badbaadiyey maanta gacantii dadkii reer jabuuti iyay ku baxday taasna waxaan leenahay kolley dee kii geystay unbaa khasaaro jooga. haddii aan usoo noqono taariikhdiisii halgamaaga inaga dhintay jaamacaddii faransiiska markuu soo dhamaystay ee uu dalka kusoo laabmay xagga maaragtay militarinimada ruushku haddana kasoo qalanjebiyey oo loo diray ou tegey cid u dirtay ma jirin isagii rag kale oo badan oo reer jabuutiya yaa tegey waxa ay taariikhdu qoraysaa raggii soo badbaaday inuu kamid ahaa ee kasoo badbaaday xagga tababarka ay kusoo qaadanayeen kadib markuu dalka yimidayna gobonnimo doonkii iyuu aasaasay kasoo horjeeday gumaysigii muddada dheer haysa jabuuti ee faransiiska ugu dambeyn iyo ugu horeyn intaba wuxuu halgan dheer ugu jiray sidii uu dalka gobonnimo u heli lahaa dalka jamhuuriyadda jabuuti iyo dadku ay nolol xalaalaho ay leeyihiin ay ugu noolaani lahaayeen. waa la xidhay oo waxaa lagu xidhay tajoora lagu xidhay tajoore isagoo xadhig lagu ogyahay xadhiggii intuu ka dhacay oo ka goostay wuxuu aftuubay duqii magaalada tajoore oo faransiis ahaa waxaanu mariyey waddada dheer ee tajoore tegta lawi cadduuna geeyey lawi cadde markuu geeyey si au soomaaliya u galo oo halkaa au gobonnimo doonkii dalka kasii mid ahaado oo kasii dardargeliyo iyo uga sii gudbay uuna iska sii daayey duqii magaalada tajoore inuu ku badbaado ou kuna baxo awgeed buuna u kaxeeyo u qaaday sidii baa ina noqotay oo wuxuu ka galay halkaa lawi caddo muqdishouna halkaa ka tegey kadib muqdisho kolkuu tegey wuu baxay wuxuu tegey haddana waddanada adduunka u baxay diyaarad iyuu ka afduubay
wafti Faransiisa sida wuxuuna fadhiisiyey meel kale maanu fadhiisinin oo eraboor caalami lama doonan wadamo kale lama doonin wuxuu fadhiisiyey xeebta Puntland badda geerkeeda meel ku taala halkaas lagu la xaajooday Djibouti-na ay furfurantay in wada hadal aw gumaysigu la furo wada hadalkii halkiiba ka sii bilaabmay waxaa la sameeyey muddo kale in ay siyaad bare aw siiyey nabadgelyo siyaasadeed iyo maadarta xornimo doonka Djibouti inuu halkaa ka sii madaxaado oo noqdo ninka wata ciidamada sirdoonka ee jamhuuriyadda Djibouti u halgamayay ee kasoo horjeeda Faransiiska safaaradii Muqdisho ku taalay Faransiisku lahaa buu aftuubay ambaasadeerkii Faransiiska u fadhiyay Djibouti markiisii saddexaad talooyinku si kastaba ha ahaadaan siday kulba isku soo tirayeen waxaa dhacday in adduunku uu la xaajooday aamin hobla cawaale la yidhina waa inaad sii dayso wax alla wixii aad u baahan tahay na sheegay la yidhi wada xaajoodkii kolkuu dhammaaday wixii ay doonayeyna loo yeelay in waddankan iyo dalkani iyo dadkan ay gumaysanayaan Faransiisko inay ka baxaan tiina ay noqotay mid wax weyn ka bedeshay Djibouti oo furfurta Djibouti waqti hore iyay dhici lahayd gobonnimadu hase yeeshee way soo jiitantay 1958 kolkay Djibouti heshay dadkii reer Djibouti ahaa ay foodkii ka heleen gumaysiga dib waa ka haddana loo celiyey 17 sano oo dambe waxay noqotay in kolba si ay isku bedeshada ugu dambeynna u aftuubay baskii 63 carruur ay ku jireen kadibna halka Faransiisku hadii dawamala ay maadarta yiri wada hadalkii ku soo noqday wada hadalkii ay ku soo laabmay si kastaba ha ahaatee wuxuu aw naftiisa u haneeyey dalka iyo dadka hase yeeshee dadkii naftiisa u haneeyey iyo dalkii way xoroobeen adduunkay ka mid noqdeen waxay fadhiisteen kuraasidii adduunka ugu sarsareysay qaramada midoobay bay fadhiisteen dalkii jamhuuriyadda Djibouti gobonnimo doon isaga iyo intii kale ee walaaliyahayd ee la socotay ee la gobonnimo doonka ahaydba way ku guulaysteen hase yeeshee nasiib darro waktigaas intaasoo halaaga la marayo intaas oo dhiba la marayo intaas oo maadara taariikha la marayo loona marayo dalka iyo dadka nin basaas ahaan jiray oo dadka gumaysiga la shaqeeyo oo basaas ahaa iyaa haysta dalkii maanta nafna aanu ogolayn intii ahaanaysay gobonnimo doonka ama dalka halyeeyada soo halgamaya ahayd waxaan ognahay ninkii sidaa u soo halgamay dalku markuu dhashay inuu noqday wasiirka ganacsiga aad iyo aadna horumar u gaarsiiyey Djibouti ilaahay dhaqaale uu sameeyayna maanta ay jiraan haddaan wax ka taabto wax badan baa ay la ogyahay shirkadda Sheraton ninka keenay ee sameeyey buu ahaa ee ka shaqeysa dhowr boqol oo qof soo jiid oo 130 qof waxaa sameeyey isaga maantana waa ka lagu faa'iideystay ilaahay maaragtay ogyahay inta ku nool ila badan oo dhaqaalo oo kamid ah waxyaalo wax soo saar lagu nool yahay iyo ka tagay hase yeeshee horumarkii iyo xawligii oo ku socday kolkii la arkay laga horiyay in la kharijiyo la damcay waysan noqon weyday kiisana gelin waqtigaas waa kii maaragtay baxay Faransiiska tagay haddii aan soo koobno oo aan maanta soo koobno taladaas cadaawadda loo qabay ee ahayd in uu nin guul dhaliyo loo yaqaanay taariikhna leh dadkuna ay jecel yihiin dad baa yaa la laalushay lagana hor keenay la yidhina
horumarka dalka ka dhalanaya ninkani wayna gambeeyaa waa inaan horumarkiisa ka hortagno horumar kolka laga hortago ma baahi iyo gaaja dadkii loo qaban dadka jamhuuriyadda Jabuuti iyagu isma oga wax kale oo yihiin oo la tusay waa la bahdilay oo dadku waa dad bahdilan horumarka laga xidhay muxuu ahaa tacliinta laga xidhay jaamacad oo loo qori waayay inaa la sameeyo dalka maanta haddaan jaamacada ka sameeyo yidhi dalalka 2006kii khudbada ujeediyey oo duuban oo hadda aan soo saari doono wuxuu yidhi jaamacad markaan ka dhiso cali sabiix dakhir tajoore ubuk Jabuuti aan ka dhiso dad baa kasoo qalin jebin doona dadkaa kasoo qalin jebiyaay shaqay iisoo doonan doonaan xaggeen shaqo uga keeni ma dhisaayo dalka jaamacada kama dhisayo yidhi subxaan allah jaamacad male waddanka faraxow aan halkaa ku yar joojiye taariikhdeennii aan kusoo noqone aadan roobla cawaale markuu ahaa wasiirka ganacsiga Jabuuti diyaarad baa jiraysay markii waddanka laga eryadayna waxaa dacayad suuqa la geliyey inuu isagu diyaaradii lacagteedii cunay oo uu lacagii la baxsaday maxaad kala socotaa waxaas inay dacayad tahay iyo inay run tahay waa been abuurka aan soo carabaabay ee laga hor keenay dadka la laaluushayna horumarkiisana loo sheegay inuu khatar ku yahay dalka oo hadhow ay dhibaato mudan doonto Jabuuti waaniga soo sheegay taasina waxay ahayd been loo sameeyay laba arrimood maanta Jabuuti markuu wasiirka ganacsiga ahaa wuxuu sameeyay shirkadda Sojig iyo hotelka Sheraton warshad kale oo warshada caanaha la odhanayna uu sameeyay oo dib u baabaaday warshad sokor uu sameeyay nin visionary oo maskaxdiisa furan tahay oo horumarka waddanka raadinayay buu ahaa abadka ahaatee awood dadkii joogay dawladda ayaa awood u sheegtay dad garab galo tolana uu waayey marka maanta xaalka Jabuuti ku taagantay iyo xaalku halkii uu masagu doonayay sideed u aragtaa waxaan u arkaa xaajiyow inta kale ee aanad carabaabin warshada sibirka iyo warshada cawskuna way ku jirtay oo warshada cawska uu sameeyey warshada sibirkana uu sameeyey ahayd wixii uu doonayay horumarka dalka uu ka doonayay uu la doonayay waxaa lagu yidhi dadka horumarkani wuu ina fasahaadinayaa oo khalkhal buu inoo keeni doonaa oo dalku hadduu horumar intan ka badan sameeya ninkani waaba nin doonaya inuu dalka burburiyada la yidhi oo dadkii waxan baa loo sheegay horumarka dhani inuu dalka burburinaya loo sheegay oo ninka ay wato marka waxa weeyaan horumarku dalka ma burburiya uu dhisaa dadku dhaqaale ay helaan ma noloshii baa loo diidaya markaa shacbiga Jabuuti inay noolaadaan oo dhaqaale helaan oo guryo dhistaan ay gurgursadaan ay lacag helaan sidee baa loogu diidayaa warshadayntii iyo noloshii caadiga 100 warshadood haddii dalka laga dhiso maba qaadi karuu yidhi maad aragtay kuwan xukuumadda hayay RBB waxay tahay dalkeenu horumar intan ka badanba ma qaadi karo taa macnaheedu waxa weeye dadka waktigaas waxaa socotay 3 baa la yidhi beesha aad ka soo jeediyeen ciise waa inaad ku xukuntiin gaajo xadhig iyo dil waa inaad ku xukuntiin baa la yidhi waxay tirtirayeen ilihii dhaqaalaha oo gaajay u horseedayeen dadku inay ku soo laabmaan oo gacantooda ay wax bahdilan ka siiyaan waana tamaanta ay ku joogaan marka haddaad ku soo noqoto maanta xildhibaan buu ahaa sida la sheegayana leeda buu joogay odagu allah u naxariista halyaygu marka taariikhda maanta Jabuuti haddii la sheegi waayana taariikhda diinka soo socda taariikhaha waaweyn buu noqon doonaa aadan roobla cawaale oo la garab dhigi doona maxamuud xarbi ama xasan guuleed allah u naxariista oo dee calanka isaguna soo hooyay marka halgamayaashii buu ka mid yahay waxaan doonayna waxa weeyaan shacbiga Jabuutina waxa uu sheegtay shacabka Jabuuti xaaji cumar waxaan u sheegaynaa
waxaan ka dhaqaaqaynaa maanta jamhuuriyadda jabuuti shacabka maaragtay joogaayo waa shacab la bahdilay oo xaggii horumarka laga bahdilay xaggii aqoonta laga bahdilay xaggii jiritaankooga iyo waddankooga mustaqbalkiisa laga dilay waxaa loo sheegay wax jabuutiyaan la yidhaahdo oo jabuutiyaankaasina uu yahay wax iyaga ku halisa ahna wax maaragtay laga leeyahay siyaasad guud oo xukuumaddu ay ka wadato dalka waxaa laga dhexaysiiyey qowmiyado kale oo aanan waddanka lahayn sida isaaq oo hargeysa ah sida gadabursi oo booram ah iyaa la yidhi jabuutiyaan weeye dadkani oo magaca jabuutiyaan qaata dadkii dalka lahaayee ciisihii iyo canfurtana waa la hoosaysiiyey oo dadkan baa lagu rakacdeeyey anigu uma baahni buu yidhi maxay ahayde wax la yidhaahda ciise iyo canfur maadaama aan warqadihii dalka babli ka dhigay oo aan cid walba siiyey kuwaabaanay ogol oo maaragtay iminka majority ii noqday cid aan u baahanahay ma jirtuu yidhi waxaana la yidhi xaaji cumarow waxa la yidhaahdo yixaasku kolkuu ku dilo aw laba kuu kala gooyo iyo waxaa la yidhi maydkaaga labada jeeniye hore dhigaa aw dul saaraa wuu ooyaayo uu lilmeeyaabaa la yidhi markaa wuxuu ku lilmeeyaa oo u lilmaynayaa jacaylo adiga u kaa qabay maahine wuxuu xusayaa ilkahan minshaarta ehe uu leeyahay ee aadka u faraha badan sida uu kuugu kala gooyey iyo sida maxay ahayday aad maydkaagii u haysto ee uu daqiiqada kadibna uu ku luqi doono iyuu u lilmaynayaa nacam jacaylo noocaasa dadka jamhuuriyadda jabuuti inuu jecel yahay mooyayaa ninkani ma jecla waa dad au meel ku ogaaday oo au khasaarshay waxqabadkoodii iyo tayadoodii baan leehay hadalka imika waa gabagabadii u dambaysa waxaad ku soo koobi fariinta aada u gudbinaysa halyeygaa dhintay iyo shacbiga jabuuti iyo dee tacsida ugu dambaysa kusoo koob wasalaamu calaykum waayahay xaaji cumarow waxaa ii hadhay inaan dadka jamhuuriyadda jabuuti u sheego waxa la yidhaahdo maxay ahayday jeerta la yidhaahdaay biyahay dhex gashaa waana wax buuran sidiisa biyaha ay gasho iyo meesha ay biyaha kaga jirtana laguma munaafacadsado oo laguma madarka faa'iidaysto hoostay doobaday cuntaa oo doobaday kicisaa doobada markay kiciso waxay noqotaa doobada dooba xitaa yixaas cabin iyay noqotaa oo faa'iido yeelan biyahaas waa la yaqaanaa meeshay ku jirto haddii ay ka soo baxdana qofka ay cunto meel kale kama dishaa layidhi waxay ka dishaa calooshay ka dishaa wayna dooxdaa baa layidhi oo midhqiradiisay cuntaa maanta waxaan leenahay jabuuti dadkii jabuuti lahaa wuxuu ku noqday jeertii biyaha dhoobada aad qasaysay ee uga baahaysay in lagu faa'iidaysto jabuuti maanta dadka joogaayey waxay noqdeen dad aakhirana jirin adduunyana jirin oo aanan adduunka la socon go'doon adeecad kama soo baxaan wax lagama arko adeecadaha adduunka kolka aad daawanayna xaaji cumar waan aragnaaye adduunka afrika ha noqoto aasiya ha noqoto america ha noqoto orob ha noqoto waxaan aragnaa adduunka waxaa lagu tusaa xaafad baa lagu tusaa lagu tusi maayo marnaba inaad jabuuti ka aragto wararka caalamka ha sugin adeecadaha adduunka inaad ka maqasha ha sugin horumarka caalamka ka socda inaad ka aragta ha sugin magaca iyo hadalqaadka calanka adduunka ee lasoo bandhigayo adduun weynaha in lasoo bandhigo ha sugin maxaa markaa ay ku caddaynaysaa inay dadku ku jiraan quruurad gunteed bay ku caddaynaysaa oo aanay lahayn wax maadaragtay laga sheegayo wax ka soo baxaya iminka markaan aragno taladata maanta dhacday geerida marxuumkaa dhintay allah u naxariisiyo aadan rabal cawaale halgamaagaa weyn adeecaddii jabuuti lagama sheegayo aaskiisii qaran lagama sheegayo waxa u dhintay lagama sheegayo
si aa u dhintay lagama sheegayo haddana isagoo diluu meydkiisa inaa u tegi wuxuu tegi tacsidiisa uu tegi waad arki doontiina intaa iga haya waayi xaaskii markuu ku cunay oo ku dul dhigta labadiisa jeen intuu ku liqayo kuu ooyayey weeyi dadkuna waxay moodayaan sadiiq ha laga fogaadaan leenahay dadka jamhuuriyadda jabuuti ninkan ha laga fogaado ha laga fiirsado ha la iska dhiciyo adduunka waad ka go'doonsan tihiin adduunka ha lagu biiraan leenahay burkina faso maanta ta ka dhacday waad og tihiin burkina faso caburin sidiisaasoo kale ah maaragtay jirtay mar saddexaadkii dadka jabuuti way joogeen markuu bedelayay dastuurka qaranka ee uu lahaa waan ku soo noqonayaa maxay ahayday doorashada soo socota sharci yaqaan halgamaagii weynaa waa kii diiday ee yidhi ma noqonayso golahan baarlamaanka ee jamhuuriyadda jabuuti waa wax jilicsan oon tale lahayn lagama arag adduunka iyagii ole waxaan dimuquraadiyad maaha waxani maaragtay baarlamaan maaha dad baana soo doonta shacaba dadkaana soo doortay ee shacabka ah ma mateli karna haddaanan xaqiiyo dimuquraadiyadda ku soo laabin mudane madaxweyne waxani xeer maaha talana maaha aad nagu jujuubayso iyagoo le lama arag wasiirada dalka jamhuuriyadda jabuuti iyagii oo mar ka biyo diiday talada madaxweynaha lama arag wuxuba waa wax waxa weeye isku wada shubtay oo wada shuuqsan oo taladoodii iyo tamartoodiiba ay noqotay wax maskax garaadda beelay oo tala la-aantooda gacanta odaygaa ku wada jira oo aan tala lahayn mucaaradka dalka haddii aan baab u soo jeediyo isagana mucaaradnimadu waxa weeye awood inay lahaato dalkiiyo dadka wax ka beddesha sidani awoodna kuma lihidina talena kuma lihidina mucaaradku ha ka bedelo taladiisan wax ta kale madaxweynaha dalka ee waktigiisu dhammaadayna waxaan leeyahay waxaad ogaataa haddaad gacan bini aadan ka badbaado inaanad ta ilaahay ka badbaadin inaad ku xigto waracow imika waxaad xustay burkina faso oo madaxweynahaas burkina faso uu doonaya inuu mar kale uu isku soo celiyo uu sharciga bedelo imikana waxaa laleeyahay ismaaciil umar geelle 2014ka warku dhamaaday 15ka inuu isku diyaarinayo isagoo inuu mar afraad isla soo raraxo haddiiba dee uu moolokulmeedku daayo inuu halkaa ku dhinto shacbiga jabuuti sidaa unbay madaxooga u fooraraa xaquuqdooda mayna doonanay odhanay sidaa burkina faso ay warna dhaaf waxa weeyaan sidee bay kula tahay wax fiican baad ka dhawaajisay xaaji cumar maanta markaad eegto dadka jamhuuriyadda jabuuti waxay ku nool yihiin dhimashada u dhaanta inay dhintaan oo la afuufo iyo u dhaanta 500 oo dhalinyaro hadday maanta isballansato oy banaankaa u baxdo oy tiraada naga teg iidaanka allaha kaa qaaday waad nagaadhicisay naga teg ay yidhaahdaan adduunyadu iyagoo bay kaalmayn isaga la kaalmayn maayo adduunyada waa laga tegey kelidii taliyo wax la ydhaha adduunyada waa laga tegey wax maaragtay kelidii taliyo oo soo taagan un oonan dimuquraadiyadda waxba kulahayn adduunka kama jirta 3 mar inaa la isku soo taago doorasho isagu isku soo taagay mar afraad buu doonayaa haddana imika allahu akbar ma dhici kartaan leenahay ummadda waxaa jira dee madaxdii africa sidii xusni mubaarak kadaafi boqortooyooyinka kale carabaha ka jira sidaa imika robert mugabe madaxda africa oo dhan waxa weeyaan ilaa ay xafiiska kolkay kol qabsadaan waddanka dhan ba u xoogi waaba caruurtoodii isagaa le ilaa mool kulmeed qaado dadka kale xaquuq uma ogola marka xisbigii mucaaradkii oo u ogolaado sharciga u ogolaado baarlamankii badiyeyna waa kii laga qaatay marka waxa weeyaan meeshan cadaalad kama jirto reer jabuutina cadaalad unbay sugayaan oo waa xagga ilaahay unbay wax ka sugayaan marka aragtidaada maxaa iman doona sidee baad u arkaysaa mustaqbalkii jabuuti baa qarangeer ku jira maanta hadday dadkaa jabuuti kacaan maanta waxay uga dhowdahay ma jiro maanta adduunyadii baa sidaa maaragtay leyn caafimaad qabta u wareegeysaa african maanta sidaasay ayay ugu wareegeysaa maxay ahayd leyn caafimaad qabto oo gobonimo doonka africa maanta hadday ka qayb noqdaan
dadka jamhuuriyadda jabuuti dadkaa hadday ka qayb noqdaan faa'iidiya waxay leeyihiin mustaqbal. hadday sidaan qoorta u foorariyaan sida kolmimo shaqada looga eriyaaye gurigiisa korontadiiyo quraanka looga goynaye carruurtiisu ay carruuraha kala barayaan uunbay ku jirayaan. abiidkood ay ahaanayaan. mustaqbal xumo iyo fiyuujar xumada soo socota waktiyada dambe ubadkooguna sidaa iyagu yihiin unbay ahaanayaan. marka wax iska ridaan leenahay, wax iska dhiciyaan leenahay, kaca oo adduunku inaguna caawinaya adduunka wax tusaan leenahay. okay faraxow eeg hadhagala news in badan bay sheegtay xaquuqda xisbi mucaaradan anna kuma taageersanin. hadhagala news way madax bannaan tahay, haba saatee waxay boynti garaysaan waxyaabaha xaqa. haddii maanta ismaaciil cumar geela gardarro lagu sameeya ama wax qalada laga sheegana waan sheegna, laakiin waxaan diidanahay dawladda xaqdarrada un baan diidanahay. haba saatee shacbigii jabuuti adduunka waa ka dambeeya, adeecadaha ma ka hadli karaan, afkaartooda ma sheegi karaan. xisbigii mucaaradkii ee jabuuti dhex jooga oo sharciyan loo ogol yahay ayaa adeecaddii jabuuti loo ogolay. sideeba markaa dadkii ay u dhaqaaqi karaan? meeshii maba jirtaba cadaaladibe. iyaga iyaa istul dhigay dee dulliga noocaasa. qofka bini aadankaa waxaa loola isticmaalaa horta waxa rag la yidhaahda iyo libaaxa waxaa la yidhi isku mida. waayo shiiqaata libaaxu adoo cabsanaya hadduu ku arko uu kugu adkaynaya baasha. adoo soo taagan oo waran haysta hadduu ku arkana faruhu kaa qaadaya. dadka jamhuuriyadda jabuuti waa dad nin shiiqaatiyihii helay oo inay cabsanayaan ogaaday. shaydaanka waan soo koobaynaa tacsidii ugu dambeynta kusoo gabagabe iyo wixii kale ee halka hawada u marinayso programka badbaadada beelweynta jabuuti oo halkan ka socda kusoo gabagabe please. waayahay waxaan kusoo gabagabaynayaa allahu naxariista halgamaaga ay naga dhintay. waxaana xaqiisa iman gacanta uu ku tegaya la sheegayana ilaahay ha u naxariisto. wax xun baase ka dambayn doona, sidaas uun laguma iloobayo lagagamana safri doono. intii u ka baxayna ilaahay samir iyo iibaanan ka siiyo dhammaan iyo dadweynaha maaragtay ka soo jeeda intaba dalka guud ahaan. sidaa iyo nabadgelyaan leenahay. ilaahayna dadka tawfiiqdooda ha mideeyo. asalaamu calaykum. waayahay kaasi waa faarax ciise xaji oo jooga maraykanka. aad iyo aad buu u salaaman yahay. dhegaystayaashada qiimaha qaayalo halkan waxaa ka dhegaysanaysiin hadhagaala news oo inii soo jeedisa afkaatirada kala duwan. hadhagaala news waa adeecad madax bannaan oo aan mucaaradna ahayn, xisbiga jabuuti midna raacsanayn. waxa ay doonayso waa xuquuqda dadka shacbiga iyo xuquuqda dawladda intaba waan sheegnaa. waxaanan faraynaa dawladda jabuuti waxa weeyaan noolaba waa dhinta ritoolooba dhiman ismaaciil cumar geelow inta ayna jabuuti khalkhal gelin, shacbiga jabuutina dulmi gelin. waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaadaan ku celinaynaa oo halkaan afkaarteeda weeyaan aan ka soo jeedinaynaa in uu dadka u ogolaado xisbiga maaragtay maanta dawartamaya ee leh waar waan saxeexaynaa wax kasta, nabad baan ku wada noolaanaynaa waddanka. afkaarta u ogolow dadka, election commission samee oo madax bannaan. wixii oo dhanna waa laysku mari laaya. waxaan ka codsanaynaa xisbiga mucaaradka iyo isagaba in ay reconciliation sameeyaan, isku ogolaadaan, dawladduna ay ogolaato labada qodob ee already baarlamanka la mariyey oo madaxweynuhu saxeexay ee ah xisbiga oo loo ogolaado xuquuqdooda iyo election commission oo loo ogolaado oo ka madax banaanada dawladda iyo maaragtay maxkamadda oo iyaduna ka madax banaanaa dawladda. waa wax dastuuriya, waa wax sharciyana already sharciga baarlamanka jabuuti baa la mariyey sida aan la sheegayo. dawladduna ma ogolaanayno, xisbi unbaa noo soo dhigay ayaan madaxweynuhu uu yidhi. waxaan u arkaynaa haddaan nahay dadkii qurba joogta ee diaasbarada inuu madaxweynuhu rabin mar dambe inuu electionkan uu ku soo noqdo uu sidii uu wasiirka arrimaha gudaha uun ku dhawaaq uu odhanayo uu ku dhawaaqo. xaqdarrada kale ee ka socota ee warqadaha jabuuti lagu siinayo qaarado kale dad degana waa kan la sheegayo. war dadka xaqooga ogolow, berri baa dhiman, adoo qaawan baa tagi. ismaaciil cumar geelow reer jabuuti maanta way ku jecel yihin, naga soco kuma le. sidaa madaxdaa loo eryaday in lagu eryadana ma rabno.
dee waxaan ku leenahay ilaahay ha ku tuso xaqa ilaahayna ummadda joogta xaqa ha wada tuso waxay leedahay nagaala nuys intaan dib u kulmayn wasalaamu calaykum waraxmatullah